tahay daawadayaal waxaan ku suganahay maanta oo markaas inaga soo salaamaya magaalada Qabri Dahar waxaan la kulmay saaxiibka Kamaaludiin Axmed Gille oo ninka aad aragtaan xaqiiqdii Kamaaludiin waa dadka markaas sheekooyinka iyo markaas majaajulayaasha ah ee ku sugan magaalada Qabri Dahar waxaan la filayaa sheekooyinka iyo markaas waxyaabaha kala duwan oo nala wadaagi doono inaan markaas aad uga wada heli doontaan Kamaaludiin sheekooyin badan ayaan dhaxmari doonaa daawadayaal nala socda waxaan filayaa inaad markaas aad ka wada heli doontaan sheekooyinkaas oo iskugu jira hal jiray kuwa hal jiray xiiso badan kuwa lahjadaha Soomaalida iyo dadka waxyaabaha kala qabsada sidoo kale sheekooyinka ku saabsan dhanka hal jiray mirqaanka Suusama ayaad markaas aad nala wadaagi doontaan ugu horreyn horta Kamaaludiin waan ku soo dhaweynaya soo dhawo waan dhawahay walaalnimanow waxa weeye marka hore magacaygu waa saa sheegtay waxa weeye barnaamijkan adigu martaqaadeen aad baad ugu mahadsan tahay waa sidoo kale waa caadi adaa ii yeedhay marka waxa weeye waxaan ka wada hadli doonaa ama waxyaabo badan kaaga taban doonaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin laajadaha iyo waxyaabaha ugu yaabka badan iyo afgaranwaaga dadka Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku wada hadla dhaxmara marka miyaan ka horeeyaa way inta horta guud gelin Kamaaludiin Kamaaludiin Axmed Gille baa la yiraahdaa way balajada iyo sheekooyinka inta guud gelin adiga waxyaabaha gaarka ku ah ku qabsada dhanka sheekooyinka iyo bulshada dhexdeeda dad ku guda jirtay waxyaabaha aad ugu qosasho maxaa kamid ah waxyaabahan aad ugu qoslo waxaa kamid ah markaan arko dad magaranaysaa isfahmi la oo Soomaali ah oo Soomaali ku hadlaya oo nin walba eraygiisa si u yaqaano waxa kale aan aad ugu qoslaa markii aan la kulmo dad magaranaysaa wadankeena waxa aad ugu badan ama siiba deegaankeena dadka aadka u qayla magaranaysaa marqaaminta ah wadanka aad ugu badan markaan arko camaladooda iyo dhaqankoodana aad buu magaranaysaa aan ugu qoslaa qaarkood waan la yaabaa marka waxyaabahaas ay u qosolka badan intaan magaranaysaa aan joogay dunida waxaan la kulmay way sheeko ama maqaal waxay u soo gaadhay Kamaaludiin mar uu ku sugnaa caasimadda dalka ee magaalada Addis Ababa dad badan oo Soomaali ayaa ku wada kulma oo markaas kuwa deegaankeena ka yimaaday kuwa waxa la jiray koonfurta iyo waqooyiga ka yimaaday halkaas waxa la jiray Soomaaliya koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga ka wada yimaada halkaas ku kulma oo lahjado kala duwan ku hadlaya Kamaaludiin oo deegaankiisa joogana u dhaxsada sheekooyinka halkaas aad kala kulantay in yar inaan naga yartaabtaan jeclaan lahaa aniga daawadayaasha nio waxa weeye arrinkii uu qosolka badnaa ama waxyaabahan la kulmay waxa kamid ahaa dadkan laajadaha kala duwan ku hadla dadkan reer xamarka reer waqooyiga reer bariga reer galbeedka dadkan noocaas kale leh oo qaarkoodaas dhihi eriyo badan bay ku kala duwan yihiin dhaqanka xitaa way ku kala duwan yihiin hadalka xitaa way ku kala duwan yihiin ficilkay ku kala duwan yihiin qaarkood marka waxa dhacday waxyaabay ugu yaabka badnaa laba nin oo haddii Ilaahay ku sabagel yahay anagoo meel hotel ka soo baxnay waa laba nin oo rabteen is dirato aniga nin kale yaan dabcan kala qaban aad isku cadaysan haye laba nin waxay ka kala socdaan marka laba nin waa labadu waa reer xamar way marka midba wuxuu ku leeyahay haye koonfurta Soomaaliya laga yimid Soomaaliya koonfurta laga yimid midba wuxuu ku leeyahay abo waxa waay waa la ii sheegay aniga dhibaatada no waxa falka igeysanaysan waa ka saayano ciyaalka xaafadda ay maleynay ilaa macbuudkiisa ku dhaartay wax ku galay arkayno wax ku galay arkay ku leeyahay magarad ma galay marka adigu waad maqashaad yaabanta aad kala qabataan malayn marka isku bottle isku maarin marka nimanku isku boodaan aad kala qabataan malayn aniga nin kale taana diyaar baad tihiin soo nimankan waa iska sheekada un bay isku waa loo kala halkaaba halkaan way marka wuxuu ku leeyahay abo waxa weeyaan ciyaalka xaafadda ay maleynayno ilaah macbuudkiisa ku dhaartay wax ku galaya arkayno ya sida fiici aan kula dirarano sida fiici marka kii kala soo booday oo yiri sida fiici aan kula dirarano abo waxa way hadda waa mashquulsana marka ka baalshanay midna uu taagay midna uu fadhiya kii ka baalshanay bay abo hadda waa artaa mashquulsana waxa way lambarkii qorano meesha rabta aan ku imana cawada araadka dhahday ugu imo waa ku imana ilaah macbuudkiisa ku dhaartay ya waxaan salaa hooyada iyo lambarba waxa soo dhigi doona moogta malaha lambarkii qoro isawa isla tigina meesha rabtaan kugu imanaya u taagan yahay waa kii kale haye marka waxaan salaa wuxuu dhigi doona war lambar iyo waxa soo ka garanaaye iyaga garbax maanta ayuu dhigi doona kii kale haye
qorno ay dhalaateenno taagan ya lambaradii baa la kala qortay annaguna waxaan leeyahay nimanka bilinta isku jabin ad kala gaadhaan waa waxyaabihii ma garanaysaa aan la kulmay wali waa brihii ugu horeysay wey ma garanaysaa dadkan Soomaaliyeed luqadda ku hadlayaan arkay ahayd marka waxay jirtay oo kale sheekadii ugu qosolka badneed aan arkay waxay ahayd ereygan sirqo maxaad taqaanaa Lumano sirqo ruuxaasi waa sirqo markii lagu dhaho waa sheekadii ugu qosolka badneed aan arkay ahayd ha sirqo dadkeena qaar waxay u yaqaanaan qofku markuu gaboobo ama canta tabo sirqo baa loo yaqaanaa xagan saan filay koonfur iyo mudug waxay tahay ma sheegi karo xagan waxa loo yaqaanaa gabadha barakatada ya sirqo loo yaqaanaa xageena barakatada gabadha suuqa gashay ma garanaysaa farax ka baxday ba yaa la yiraahdaa sirqo dadkeena galbeedka iyo bariga qaarkood waxay u yaqaanaan gabadh islaantu markay canta tabto isku dardarmato yaa la yiraahdaa sirqo qoladan waxay u taqaanaa gabadha markay magaalada gashay ee faraha ka baxdo la gabadhaas way waalatay marka laba nin ba hotel wada degan waa adsawa mid marka iyadii oo sirqa dhimatay mid ba iyadii oo sirqa dhimatay telefoon baa soo dhacay kolba war waxay ahayd iyadii oo sirqa Allahu naxariisto Allah samri iimaan Allah naga siiyo aldii kulligeen buu dhaha ninkan waa yaaban yahay hadda iyadii sirqa ahayd muxuu sheegayaa isleeyahay ya hadda iyadii sirqa ahayd wuxuu ka sheegayaa bitaagay marka maalinta dambe uu ku yiri maalinta la soo aasay iyo u yaaray oo ku yiri aniga qofka Allah uu dhintay shalay iyo aha shiri wana islaan ayada oo sirqa ya ahayd soo ku yiri aniga soo qof islaamati hadayba sirqa ahayd soo waalidka ma ahayn siyaha Soomayna dhiman maxaad ka sheegi kan kale wuxuu taagay boor in cid kasta ogeed in sirqa ahayd buu leeyahay ya cid kasta ogeed in sirqa ahayd buu taagay asagu oo goorma sirqoodii ku dhaho ma dhaweyn 5 sano u dambeysay sirqa ahayd soo ayda ma ahayn siyaha ayadii aakhir waxay kala helaan bilaha iska daa sirqadeedii iyo waxa doon waalidka way ahayd Allah u naxariisto dheh umadana gaarsiin waa shaqooyinkii ugu la yaabka badnaa la kulmo ahay xaga ma garanaysaa ilaashadaha kala duwan mar waxa dhacday habeen ma saqdaxan waxa iska soo arbaxnay mid raaxmar oo siyar garanaynay aan iska soo arbaxnay wuxuu wataa dadkan raaxmarka waad iska garanaysaa cuntadooda cuntada ay cunaan waxay u badan tahay sambuus iyo mashmash iyo chips iyo bataati waxyaabaha yararka ee macaan bay iska wataan ukun iyo dooro iyo wax noocaas marka haduu Ilaahay ku suuq galiyahay ama saqdaxa meelaha 6 saac habeenimo iyo wuxuu ka soo arbaxay soo bac ukun iyo chips iyo waxyaabo ku wataa ama saqdaxa waan salaano aboo yorano kamal awada intee u socoteeno san ku alxamdulillah aniga ma reerkii waxba u wada cunto ma aboo iska bulaan hayno kaliya adegan san ku wari marka dhalinyar iyo waxba kula joogo oo wada aboo kaliya la watano waxaan cunta ama toddobaadkan baad rabtaa inaad ku ma aboo waxa waa filan ku fiirsanayno waa gartay waxa waa kamal waa ku fahmaya dhalinyarada ma ogtahay hoo cuno meeshii weyn ii dhibayo ruuxan iga daa tan maxay ahayd baan dhaa tan waxa waa aboo dooro waayno ukun waayo war ukuntan maxay haysatii ma garanayso la soo shiili jiray aboo saana ku duban tahay no tudubka meesha iga fiiqay ii dhibay oo ku fahmaya kana ku darno mashmash al dhahno mashmash al dhawa wax yaro sawaayadahan amal mashmash al dhahno ku dar oo ku fahmaya dhalinyarada ma ogtahay aboo waxyaabaha ma garanaysaa dhanka laajadaha marka nin raaxmar iyo nin reeqooya hadana sheekadooda u galno mid raaxmar xanuunsan baa waxa ka soo arbaxay dadkan reeqooyana waa iska taqaanaan filayaa hadal yar adag iyo waxbay leeyihiin dadka kalena hadal iska yar dabacsan oo hadal naxariis u badan bay iska leeyihiin moogta aboo noo marka mid xanuunsan baa waxa ka soo arbaxay nin xanuunsan raaxmar iyo mid reeqooya yaa iska soo arbaxo dhakhtar baraan tilmaan aboo waxa waaye waa xanuunsanay ma ogtahay marka aboo waxa waaye dhakhtarka u baahanayno tilmaano saa inta uga darkay buu armo dhakhtar baad u baahneed si aboo maxaa ka xanaajino si arnin jilacsan la cadaabe sakada inta ka laabtid sakada ku soo jeeda ta ka sii jeeda ku laabo deesaw dhaqa aboo maxaa ka xanaaji aboo kan waa wax la ku weydaano aboo waa xanuunsanay arniyo ma dhakhtar baad u baahneed misaal baad u baahanta kan si taagan marka
marka hadduu ilaah kuu sabagel yahay waa xagga laajadaha haddaan weli laajadaha kusii soconno shako yar oo xagga soomaalida magaranaysaa ee aad magaranaysaa ee uga dhacday dadka soomaalida inta badan aan filaya inay wada hayaan sheekada xalwo inay haysaan filaya oo shakooyinka aan la yaaba aan ku qoslaa nin reer waqooyi oo gabadhiisa xalwo la yidhahda nin reer xamra oo hargeysa iskaga nool baa yidhi abo waxaa waaye maanta xalwa u baahanay moogta waa nin meherad haysta abo maanta waxaa waaye xalwa u baahanay kana gabadhiisa uu qabaa la dhahaa xalwa u baahanay moogta marka waxaa waaye abo xalwo ma kaa heli karaa no su dhahay now arma xalwo xalwo xaggee isku taqaanin xalwo ma ay sheegay xalwo anu waan jeclahay no xalwo anu waan jeclahay oo xaggeed ku jeclaan jirtay uu taagan yahay ninkan su dhahay xamar weynaa ku dhudhuuqi jiray no xamar weynaa ku dhudhuuqi jiray marka shakooyinkaas aad baa loo hayaa taas ayada marka haddaan magaranaysaa in yaroo kooban oo reer waqooyiga iyo reer xamarka aan ayadana wax ka soo qaato kolley aad baan u badiyey xaggan magaranaysaa laajadaha nin reer xamara laba nin oo reer xamara waxay isku qabsadeen hargeysa waa caasimadda labaad ee soomaaliya iyo ma aha caasimadda labaad ee soomaaliya marka mid reer waqooyi ay weydiinayaan abo waxaa waaye yaa ku reer waqooyi oo la yimaadeen ayagoo sheekadii isku haysta ma aha iyo way tahay marka waxaa waaye abo waxaa waaye ninkan tarfatoore waaye no tarfatoore waaye hargeysa waxaa waaye soomaha abo caasimadda labaad ee soomaaliya abo soomaha si now arwaxayde waa kii reer waqooyi abo runta u sheegno tarfatoore waaye caasimadda labaad ee soomaaliya abo hargeysa maaho si now jow bow hayaay arwaa badheere utay arwaa badheere maxaa hargeysa soomaaliya ka dhigay butaagaya kan hargeysa maxaa soomaaliya caasimadda koowaad ee somaliland buu kana taagan yahay now jow bow hayaay arwaa badheere utay dadka qaar baa macnaha ya qadiyadoo saas iskaga sii weyntahay moogta marka haddaan halka kaga kalno xagga laajidaha sheekooyinka murqaanka haddaan u galno waddanka nin aad ugu badan ya waxaa ka dhacday laba noo dhalinyara waxaa dhacday saaxiibo ahayd adigu aad baad u garan xaafadahan qabdahar waad garanaysaa luuqadda ay inta badan xaafadda koowaad ku hadlaan ciyaalka afkan dibta laga soo akriyay ee waxaasoo kale ay waxaas ku sheekeysanaya marka murqaankii un bay kala tagtay oo dad kale meesha fadhiya moogta afkii baa la iskaga hadlaa atnaa maxaa ugaasa maseeyey wax noocaas murqaankii un bay kaga dhigtay sho way bar go-een mid un baa yidhi bixaas anugu oyahaday baan ugutay aan gacal nooga soo daaqi ramkaasaan garanaysaaye waxaan ku haray damaxa inunaxay macnaha hooyadii baan u tegi oo lacag inooga soo qaaday waxaan ku dhihi madaxa xanuunaya marka lacag aan kanin iyo wax kusoo gatoon isu soo baadhay si yaan dhihi marka wuxuu taagan yahay oyahaday baan ugutay oo ramkaas waxaan ku hadhay gacal aan nin kusoo dagto oon isku soo dhaabo is yaan hadhi buu ku leeyahay waa xasan arab bixas maad naga aadid su dhihi socod ma layiqi kartid socod ma qayli kartid buu dhihi su dhihi ina mari meeshan baa laga lugeeyey magaalo cusub baa laga lugeeyey xafid cilhar baa la tegaya waa labadoodii keliya afka baa la iska sheekaysanaya marqaankii un ba kaga dhigtay suusii socdooyin buu hooyadii u tegey kii kale wuxuu ku yidhi makula galaa macnaha siimay agida lemtini isgaad meeshan istaag adugu wuu galay hooyadii su ku yidhi oyo damaxay nunaxa haya wokan ramka gacal ba xagee ka garanaysaa wiilku mi waa shabeelaada oyo damaxa nunaxay wokan ramka waxaan u haabanay gacal aan isku soo dhaabo oo ninka iyo xaw kusoo dagto yaan u haabanay oyo bal gacal is sitri ya wiilku mi waashay wiilku mi waashay wiilku maxaa helay oyo hata ramka aan gacal ka la daho maxadista ugu la dahdaa aga walaad maxay ku fahmi lahayd isleeyahay oyo horta ramkan gacal ka la daho maxadista ugu hadashaa macnaha xadista ugu la maxaa sida ugu hadashaa markaan lacag ka hadlo atna waa geni gacal ku naga gacal waa yahdaa maanta aniga lacag ku keenay lacag wada haysaa ibid buu ku leeyahay marka ninkan tii uu degan yahay kaga dhiganta duqdina asagu jaad buu qarsanayay ninkan waa dhalinyarta markaa bulwada qarsatay ah khamri baa loo maleeyay inuu cabsan yahay gabadhi walaalihiin baa ka soo baxay oo qosol nafta uga baxayso ku hayso ninka maxaa ku dhacay marka
gabadhi baa ku tiri war disda colo la dal si caadi oo la hadal ooy markaasuu gartay inuu ku jira inuu offside ku jiro ay aarantu iska soo dhaaqo madax qabsay waad garanaysaa waa iska yeelaysaa intuu yiri iska soo baxay ninkii banaanka ku sitaayen baa ku yiri gacalka ma ka soo daaqday suku iyo da afgaalaadka see offside nageli mid waa taas haddaan dhanka kale u weecdo laba nin oo nin dhalinyaro asna balwada aad u qarsada oo dadka jaadka qarsada ah baa waa berihii hore ee dowladdii maxayd berihii hore ee dee nimanka onolifta haa isbedelka intoon dhicin onoliftana ay magaranaysaa ay xil ku jiray haa jamhadda xoreynta ogaadeen markay xil ku jirtay marka waxaa dhacday waa tii dee hoosta loo sheekeysan jiray xamda hooyadii iyo aabihii oo weligii sheekeysanay inuu arag hooyadii iyo aabihii oo sheekeysanayna soo ninkan weligii mun arag waana marqaasaya amisaq dhaxan buu soo galay hooyadii iyo aabihii oo sheekeysanay xusi waa lagu fahmay waa lagu fahmay hoos bay u hadlayaana laba dhaadheer bay ahaayeen bay leeyahay laba dhaadheer bay ahaayeen marka halkana mareeno laba dhaadheer yahay ninkan asagoo waxay la noqotay oo reerin asaga laga sheekeeyay wuxuu taagan yahay jaad ku roona sigaarka uu burburiya in leeyahay horta sheekada waan ku kala dhaafee soo socday markuu arkay hooyadii aabihii oo sheekeysanayo soo weligii ayagoo sheekeysanayaan uu arag unbuu istaagay saa hor istaagay say ayagana markay arkeen inuu wiilkoodu yahay ilaan sheekada siyaasadda ka sheekeysanayeen unba tooda iska sii wataan asna waa hor taagan yahay soo xagga ka maraa laba dhaadheer bay ahaayeen baa laleeyahay asna waxaa la noqotay in la leeyahay isku daraa labadu jaad ku roona sigaarka uu burburiya jira garoob kama kaco jira garoob xagga ka maray soo xagga ka maray markii dambe intuu gurigi saa horumaray ku yiri haddaad mooysaa inaan qayl hebel weydiiya saa waxaa kaale maxaa tiri baa layidhi markaasuu aadaaba isfashiliyey baa lagu yidhi kaale maxaa tiri iyaaba qayar ka hadlay marka waa waxyaabaha u sahlan ba waxyaabaha u sahlan wey markii ma garanaysaa laga hadlayo dhanka marqaanka marka waxyaabo badan oo markaasi uu fashiliyaa jira oo dadka marqaanka weliba ku cusub sheekada hadda ka hor aan maqlaan laftigayga oo marqaanka ahay waxaa la yidhi ninba isagoo marqaanku uu qarsan jiray marka jaadka macnaha kabacdii aabihiina uu la saxan jiray qol buu la saxan jiray soo marqaan buu soo galay guriga aabihii buu ka cabsanaya marka inuu la jiray uu ogaado inuu qaylo soo galo isduudubo musaadaan kuma marka soo garaacan telefoonkiisa kama qabanayo waayo hadduu qabto qaabku yar oo hadlay iyo ka cabsanayo inuu la fahmo odayna uu qayli jiray odayna uu la haystaa waxa la jiray uu qayli jiray qaabka qaylka uu garanaya wuxuu marka inuu message qoro ku yiraahdo la jiray saaxib abay waan la jiifaa oo inuu ifahmaan ka cabsanaya iyo waxa la jiray igada bari waan ku soo imaan soo tasay message ku aar qoran message dhameeyay saaxib la jiray waan soo marqaamay abana waan la jiifaa inuu iga fahmaan diidan ana bari ku soo wicib asay inuu diro on baabiyo dareeb abiisi uu ka qarinay sheegada ya saxabka loo diray message ka maagti message ma waxa la jiray fresh ka xigmo ka sadacay din wadadkaas isku riyo moolka qaadi shiru bisheedro intuu ka sadxabooday yirkan ka baa la liiso darasiir waa moolkayga ma wadad kicliya inuu isku qasay meeshi asii uu ogaa inuu khaldamo message waxa abi u diray gartama kar wadadka la kala baxo inkaari halku dhacday riwaadka message ku dhameystay gaar iska saar marka jaad muu ku cusub dadku u tartariya aad buu dadka u tartariya anu dadkii u yahay wada arka waxa kamid ahaa sheekadii uu qosolka badneed maqlo iyo waxay ahayd nin ba waad sawa waxa dhacday gabdha qaylaya loo geeyay marka waxay isku soo horjeesadeen ninkani gabadh ma garanaysaa markay maqaanto saa ay kaga dhigto saas ay dhahdaan inta kore dhaqaajiso inta dhaqaajiso iyo iljibina ku daray waa saa dhii marka ninkan waa Cabdiqafaar gabadha la meestaa uu ka soo horjeeda adisana babad iyo dhaxan baa saa u dhacaysa meel kul markuu ninku ku jirana ma garanaysaa dhaxanta kaadada xitaa dhibsan inuu musqusho saa bay ku dhahday moogta asoo saa inta isoo fiirsay ma saa ku tagay
اي soo qaateen leeyahay banaanka u sii bax banaanka u sii bax ninka waa boodaa marka dhaxantii noo jirtaa dhaxantii iyo babadkiina wuu jiraa kaadida isku heshanay banaanka unbuu boodaa soo afka jeelka labada galay 30 daqiiqo markuu taagnaa ilaa 40 daqiiqo oo wax u soo baxay waayo unbuu ku soo laabtaa malaha wax chance way weeyday ay ku soo kacdo oo dadkani waxaanay ka cabsanaysaa soo ag fadhiso in yar markuu fadhiyo meelaha 2 daqiiqo ama 5 daqiiqo yaa saantii lagu dhaho yaa loo raacay in jibin yar dhag soo boodi wallahi waran hadda chance heshaan soo banaanka u boodi saacad bu taagnaan marka babadkii dhaxanta soo soo gurgir jaadkiisina meeshu yaala soo soo gurgirinay ya markii dambe uu arkay inay wuxuu fahmay gabadha ku ciyaarayso mar dambe ayadoo sheeko iska wada intuu soo laabto ay ka soo horjeedaa moogta ayadoo sheeko iska wada meesha ku tiri ya soo ku yiri beenalay wallahi bixi dadka dhacmartigiis ku yiri beenalay ya meel lama socdaano ya marka way jiraan dad dhibaatooyin badan kala kulma horta dadku way wada qarsanayaan in aan dhibaato la kulmin ma jiro ninka ugu yar waa ninka garanaysaa inta lagu yiraahdo soo qayl in masuulana uu moogta ya war maxamed baa lagu yiri moogta sa xaafad horta sheekadu waan ku kala dhaafay xaafad waxay fadhiyaan islaamta inay ogolaan guriga in lagu qaylo si sir lagu soo galiyay ma garat marka hoos soo hadlo oo heesii waxa dhageysanina iyo gabadha ku tiray si sir ku soo galisay ma garat ninka najaadku ku cusub yahay maalintii koowaad baa imsa maalintii labaad waa nin masuula marka ninkii kale markay marqaanku isku daba dhacay umba ayar ku yiri war maxamed buu ku yiri marka maxamedkii waxa la noqotay in lagu yeeriyo banaanka cabaar markuu aamusnaado umba maxamedkii ma waxa la noqonaysa in banaanka laga dhawaaqo soo wuxuu dhahay soo bood oo dhaamo qof kale ma leeyahay kii la marqaamay ba dhihi war maxamed waxaan ku weydiiyay suka amsaawo yidhay qaado dhahay sado banaanka laga dhawaaqo maxamed laga leeyahay banaanka soo dhaha gaarsi codka waa dadka ugu dhibaatada yar wey wana qarsanayeen oo si sir lagu soo galiyay oo maamada ma ogeeyay meesha rag fadhiyaan waxa la qinayo bilaa marka waa dhibaatooyinka ugu yar yar weeye waxyaabahaas wax la soo koobi kara ma nin kasta horta ofsaad uu ka soo galaa oo waxan way wada qarsanayaan